عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiin akhyaarta nagu xiran kusoo dhawaada maanta iyo wararka aynihan dad goobjoogayaal ah oo ka warramashado isir ku saleysan oo ka dhacay galbeedka Itoobiya ayaa sheegay in aysan u suurtagelin in ay badbaadiyaan nolosha dadkii halka lagu laayay gaarayaan in ka badan 250 qof dadka la laayay ayaa la sheegay in ay kasoo jeedaan qowmiyadda Amxaarada waxaana laayay falaagada Oromada ee Ola afhayeenka Ola oo ka hadlay arrintaas ayaa sheegay inuu sabab ay u ahayn dilka dadkaas xasuuqa dadka la xasuuqay ee dowladda la haysay dadkii dib gurashada dib markay isdagaaleen dagaalka dhexdiisa ayaa sheegeen inay ku sheegay inuu dad maleeshiyaad oo dowladda ay hagaajiyeen inay kula dagaalaan jabhadaasi ugu talagaleen ayay ku sheegay inay ka dambeeyeen xasuuqi dadka la laayay ee tuulooyinka deegaanka dadkii oo tiradiisa aad u sareyso oo 250 waliba kor u sii dhaafayso ayaa la sheegay inay hataa si loo kala xawaalo xawaalka hataa loo diiday ayaa laga warramay oona la fasixi waayay in dadkiiba hataa la xawaasho meesha lagu laayay caawinaad la caawiyaba iska dah waxay kaloona sheegeen inay ayaga ay sabab u ahayn aysan laanin ay badaarin dadka ayaga ayna dowladda ka dambeeyeen ayna laaysmada dhameyska dadkaas lagu xasuuqo meesha ayaga dowladda iska degnaa maadaama meel agagaarkeeda lagu dagaalayo dowladdii ayaa u sabab ahayd laaysay ay ku eedeeyeen iyad hub loo siiyey la hubeeyey si ay ula dagaalamaan Oroma Ola si ay ula dagaalamaan ayaa loo siiyey hub loo hubeeyey balse waxay ku soo laabteen shacabkii tuulooyinka degnaa meelihii degnaa inay ay xasuuqaan meeshiiba lagu laayo dad iska tiri badan oo 250 waliba kor u sii dhaafayo kadibna meeshii digi dambas dadkii wax looga baxsado la waayo teeda kale waxaa la sheegayaa in dadkii hataa caawinaad dadkii hataa dhaawacay meesha lagu laayay caawinaad iska daayay hataa xawaalkii si loo kala xawaalo la fasixi waayo dadkii hataa in meesha laga soo qaado la xawaalo dadkii oo meedadkooda iska daadsan oo si xun waliba banaanaha iskaga yaallo hadee waa iska dareemi kartaa tuuladii la soo dhaxgalay oo 250 qof ka badan lagu laayay loona fasixin dadkii hataa inay dadkii wixii badbaadsan karaan ay badbaadiyaan kadibna dadkii meesha ay ku dhamaadaan hataa xawaalkooda hataa dad quman oo ka qayb gali karo inuu hataa xawaalo dadkii la laayay meesha lagu asturo way suurtageli waase in sheegay inay islaantiisii iyo soododii lagu dilay meesha ayaa sheegay inay meel xun ay u suurtageli waasay inay dadkii hataa ay in lagu dilay soododii iyo islaantiisii meesha ay ahayd ayaa sheegay inay hataa soo qaadashadii meydkii hataa dhib ay ku ahayd ay u suurtageli waasay si uu u xawaasho maadaama dadkii meesha lagu laayay wax qaban marka ayada uusan lahayn waxay habboon yihiin markii in la iska asturaba ay tahay ayaa ku sheegay inay arrintii ay aad ugu adkaatay inay dhib ku noqotay maadaama wali maleeshiyaadka ee dadkii hubeysnaa wali meesha ay kor taagan yihiin dowladda lagu eedeynayo tuulada agteeda dad inay kula dagaalamaan damcaan ayakii haddana dadkii aana badbaadinin haddana badbaadkii iska dhaaf ayagiiba lagu eedeynayo inay laayeen inay meydkiina haddana loo gurmanin laga soo qaadin meesha haddana waa dhibaato kale waayo dad iska laayay oo tuuladii loo soo kor dhaxgalay oo la laayay wixii laayay hadda maanta nin kasta uu qofki kale eedeyn uu korka ka saarayo waayo Oroma hadiiba ayagiiba eedi ay iska wareejiyeen ay sheegeen ayaga inaysan ka dambeynin eeba ahayn dadkii marka ayada laayay dadkaas ayaga meesha lagu xasuuqay haddana dadkii ay ku eedeynayeen ay noqotay dowladda xubin ka mid dad maleeshiyaad oo dowladda ay hagaajiyeen si ayaga oo dagaalamaan haddana inay ku soo laabtaan shacabkii meeshii lagu laayay waa arrin aad u suurto xun aad u fool xun kadibna haddana dadkii loo fasixi waayo inay la soo xawaalo la asturo haddana waa arrin ka sii daran sidaan ognahayba dowladdaasi Itoobiya baryahan dambe xasuuqaad badan dagaallo badan ayaa ka socday in muddo ah taas oo lagala soo horjeedo ayaga ahaantooda ay ka soo horjeedaan Oromo ay leeyihiin dowladdaasi inay ka soo horjeedaan kula dagaalamayeen si ay dowladda ay xaqooda dantooda ay ka rabeen ay ka waayeen si ay uga heli lahaayeen ay uga dhacsan lahaayeen ayay kula jireen dagaal in badan dowladda dhexdeeda
taas oo maaragtay sababtay in dadkii misna ummadii jiiraanka ahayd misna iska agdhawaayeen inay isku lakad isku noqdaan misna ayagaba isnacaan misna ayba igadan heer ay dadka tuulooyinka degnaayeen ayagoo warmoogo iska ah loo imaado oo meesha lagu laayo si xun weliba loogu laayo kadibna dadkiiba maaragtay in haddana la xawaalo la fasixi waayo taas waa arrin aad u fool xun oo cadowtinimo aan ku dhihi karo tii ugu dambeysay maadaama haddii aad iska dareemi karto dad idil oo la laayay haddana la fasixi waayo midadkooda in la xawaasho dadkii loo fasixi waayo dowladdiina ay meesha ayada ahayd dagaalka ay ka gashay tuulada korkeeda haddana ay maaragtay dadkii ay ka caawin karaan misena ay wixii la laayay kolay la laayay marka ayada in la xawaalo haddana ay u suurtagelin waayeen arrin haddana aad u sii fool xun waaye maadaama ayagii haddana wixii meesha dagaal ku galaya ee dadkii hadda shicibkii gudihiisa dadkii kula dagaalamayay haddii dadka ayaga lagu dhexlaayay haddana inay maaragtay eedeen iyagoo kor ka saarayaan maaragtay jabhad kale misane fallaaga kale oo dee dagaal ay kula jireen haddana inay maaragtay ay caawin waayeen dadkoodii misne shicibkii ayaga ay ku dhex dagaalayeen laguna eedeynaya haddana ayagiiba inay dadkaas ay ka dambeeyeen laasimadiisa sababta ay tahay kolay haddana ma ay soo gaarin balse ayagiiba haddana lagu eedeynaya haddii afhayeenkii u hadlay fallaagada ayada ayaa ku eedeeyey misne maaragtay ku sheegay in ayagaas ay ka dambeeyeen wixii la laayay maaragtay shicibkii meesha ku noolaa maadaama haddii shicib dhexdiisa dagaalka uu ka socday wixii lagu dagaalamayana tuulo dhexdeed ay ahayd ayaa ku sababtay in dadkii haddana meesha lagu laayo haddana ay maaragtay eedeyntii farku-fiiq ay noqotay ku kasta oo kii kale uu eedeynayo uuna leeyahay macnaha haddii kanaa dilay iyo kanaa dadka laayay iyo kanaa laayay balse maaragtay wixii meesha lagu laayay la laayba laakiin in haddana yaa fasixi yaa waayay wixii marka ayada looga cabsanayo inuu maaragtay haddana uu dadkii uu laayo mise wixii meydka qaadanaya mise wixii wax xawaalaya inuu haddana laayo qofkii fasixi yaa waayo waa su-aashii haddii fallaagada ayaga ay sheegatay inay laanin misena eeba maaragtay dilin ku eedeynayso dowladdii haddana dowladdiina ayadana maaragtay ayna maaragtay farku-fiiq ay noqoto ayadana haddana ay laabtay oo arrintii lagu laabay fallaagada ayaga ay isdagaalayeen ayaa haddana sababtii ugu weyn misna foolxumada meesha ka jirta ayaa ah haddana dadkii inay laga cabsanayo misena weli la kortaagan la sheegayo inay maaragtay nala fasixi la ay yahay dadkii maaragtay inay la xawaalo oo maaragtay tuuladii dadku iska dhex daadsan yahay ayagoo meediyaal oo weliba si maaragtay tiro aan maaragtay aad u fara badan ay tahay su-aasha hadda aan ku weydiinayo mise adiga aan kugu soo celinayo weeye waxay tahay ma lagu dagaali karaa meel shicib uu tagan yahay mise dagaalkii asaga aan ku jirin mise dagaalka asaga aan qusaynin ma lagu dhex dagaali karaa teeda kale iyagoo waxba loo sheegin misena digniin la siinin maadaama meesha dagaal uu ka socdo dagaalkina haddii wax kasta uu ka dhex dhici karo mise si kasta weji kasta uu yeelan karo ma la isdhihi karaa dowladdaas sabab weyn ayay ka ahayd in maaragtay dadka meesha lagu laayay maaragtay lagu xasuuqay weliba tiro aad u fara badan laga laayay dadka iyaga ahaa inay u sabab ahaayeen mise ay ka dambeeyeen ma isdhihi karnaa waa annaga laftaanada